Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarteyda sida idishiinba kusoo dhawaada mar kale iyo Arsenal iyo suuqeeda ciyaaryahanada aan ku bilaabe marka hore fadlan haddii aadan channelka subscribe inoo saarin subscribe inoo saar 2,000 ayaan ku dhownahay yaa dhowr iyo 10 subscribers kaliya inooga dhiman Arsenal fans meesha kusoo bataan haddii aan ku bilaabo wararkeena ciyaaryahanka ugu horeeya Kai Havertz ayaad ogeydeen in Arsenal ay maartay lacag ay ku raadisay oo lacag u bandhigtay Chelsea hase ahaatee waxaa la sheegay lagu soo waramayaa in Arsenal lacagta lagu soo celiyay lacagtaas oo welibana lacagta Arsenal ay bandhigtay waxay lacag ka yar 60 milyan lacag ka yar ay Arsenal ay bandhigtay oo ay isku dayeysay in ciyaaryahanka ay ku saxeedo hase ahaatee waa lagu soo celiyay mar kale ayaana waxaa la sheegaya Arsenal ay isku dayi doonaan in ciyaaryahanka lacagtaas intay xoogaa ku daraan in haddana mar kale ay tijaabiyaan hase ahaatee xaaladan hadda la taagan yahay lacagtii Arsenal ay bandhigtay waa lagu soo celiyay sidoo kale waa hubaal baa laleeyahay in Kai Havertz iyo Mount ay Chelsea ka tegayaan marka waxay ku xiran tahay un kalaabiyada doonaya lacagta saxda ah ciyaaryahanada saxda waa inay bixiyaan sida ogtihiin Chelsea khasaare ay ku jirtaa half billion ayay khasaariyeen maartay labadii suuq u dambeysay marka kabasho ayay sameynayaan oo maartay waxay isleeyihiin ciyaaryahankiina ugu yar aad dirtaan 75 milyan 70 milyan 80 milyan meelaha ku taga ay isleeyihiin marka ciyaaryahanka asagana xalkiisu waa xagga sidoo kale Declan Rice ayaa weli lacagtii loo bandhigay West Ham ay iyadana ilaa hadda ay maartay wada hadalkii u socdaa oo Arsenal iyo West Ham weli way wada hadlayaan Arsenal waxayna noqotay sida idin sheegay lacag 100 milyan ay la noqotay ma u maleynayo in ay tariifkan ay diidi doonaan West Ham in ciyaaryahankaas maartay 100 milyan ay ku qaataan hasaatee waxaan u maleyn waxay ka wada hadlayaan waa un add-ons lacagta ciyaaryahanka 100 milyan ma ahayn lacagtii kaleete ee ciyaaryahanka intuu Arsenal imaado hadduu si fiican u dheelo lacagtii ay maartay bonuska ahaa ee ay maartay laga qaadi lahaa Arsenal ay ka wada hadlayaan ma u maleynayaa hase ahaatee iyaduna waa sugeynaa warkaas goor allaala goorta uu soo baxo iyada sidoo kale mar dhow waxaa lagu dhawaaqi doonaa Saliba heshiiskiisii waa la saxiixiyay oo waa la dhameeyay ee la leeyahay waana wuxuu gaarayaa ilaa 2027 hal option wuxuu leeyahay sidoo kale uu ku darsan karo markuu waqtigiisa u dhamaaday ilaa 2028 ciyaaryahanka mar dhow ayaa maartay isna lagu dhawaaqi doonaa ayaa la leeyahay maalmahan next week baadi waa lagu dhawaaqi doonaa in maartay Arsenal ay ciyaaryahanka heshiiskiisa uu la sii dheereeyay oo uu joogi doono sidoo kale Arsenal ayaa haddana waa indhaheeda waxay soo saaraysaa ciyaaryahankii maartay Gundogan si official ah ayaa waxaa loo cadeeyay baa la yiri in Ilkay Gundogan uu ka tirsan yahay ama Manchester City ay ku dartay liiska ciyaaryahanada ay iska direyso taas waa la xaqiijiyay ayaa leeyahay labada kalaab ee aad ciyaaryahanka indhaha ugu hayana waxaa la yiri waxa weeyaan waa Barcelona iyo Arsenal inkastoo ciyaaryahanka intentionkiisa iyo rabitaankiisa uu la jiro Barcelona oo Premier League wuxuu rabay uu ka qaatay waxaa leeyahay haddana waa Arsenal ciyaaryahanka indhaha ay ku haysaa way raadinaysaa sidoo kale Musa Diaby ayaa iyadoo isaguna Arsenal ay raadinaysaa sida ogtiinba Arsenal winga ay raadinaysay garab ay raadinaysay weliba garab Saka u nasiya oo ma aragtay isku bedbedeshaan dhinaciisa marka waxaa leeyahay Arsenal ayaa waxay tahay teamka ugu cadcad ee ciyaaryahanka laga yaabo inay saxiixaan iyadoo ay jirto welibana rabitaan xagga Newcastle United uu jiro Newcastle United ayaa ciyaaryahanka indhaha ku haysay suuqa sidoo u bilaabmay marka waxaa leeyahay laakiin waxaa labadooda u cadcad Arsenal ayaa leeyahay ciyaaryahankaas Arsenal ayaa u cadcad ciyaaryahanka inay soo qabato sidoo kale ciyaaryahankan da'da yar ee 19 sano jirka ah ee Romeo Lavia loo yaqaano ayaa isaguna Arsenal ay raadinaysaa waa khad dhexe Southampton ayuu u dheelahayay seasonkan mar dhow ay soo gateen haddana wuxuu oo la laabtay maartay divisionkii ayuu la aaday championshipka marka waxaa leeyahay ciyaaryahanka isaguna Arsenal waa ay raadinaysaa oo waa khad dhexe oo future ah runtii waa ciyaaryahanka anigu waa arkay aad buu u adag yahay waxaanba u maleynayay inay Liverpool ay saxiixi doonto
wararka badi sidaan ku arkahay inta uusan season ka dhamaan ciyaaryahanka waa Liverpool ba aad indhaha ugu haysay marka haddana waxaa leeyahay Arsenal ayaa meesha soo gashay oo ciyaaryahanka hadda indhaha ku hayso waa 19 jir 19 sano jir aad u fiican difaacisiisa ay fiican tahay runtii maartay baasaskiisana ay fiican yihiin waxa ay Arsenal ciyaaryahankan ay maartay isha u soo saartayna waxaa leeyahay waxay ogaatay Arsenal ama sida dad qof walba uu ogaaba Arsenal seasonkan waxa dib u dhigay waxay ahaayeen physical game ciyaartaas maartay ragga khadkooda dhaxa ma ahayn markii ciyaaryahanada fiican ay ka hor imaadaan ama tiimo xoog badan rag maartay banoonta haysan kara oo pressure ay la tacaali karo oo maartay physical side ma lahayn gamekooda oo Brighton ba banoonka qaadanaysa Brighton hadii dadka dhaxda u taagnaa waa garanaysaa Moises Caicedo McAllister rag wada xoog badan oo maartay oo jir ciyaaraha banoonta marka physical kulay waa jir baa loo baahan yahay khadka dhexe ciyaaryahan maartay adag oo banoontiisa haysan kara marka ciyaaryahankaas waxa leeyahay Arsenal waxay rabtaa inay iska garab dhelsiiso Declan Rice iyo ciyaaryahankan Romeo Lavia maadaama Moises Caicedo ay iskaga baxday oo maartay 100 milyan laba ciyaaryahan ay ka bixin karaan marka ciyaaryahan hadda championship-ka waxa laga yaabaa inay ku soo hesho 35 milyan ilaa 30 milyan ciyaaryahanku ma yara ciyaaryahanku waa suuqa lacagtiisa ma yara waa ciyaaryahan aad u fiican ciyaaryahanka marka Arsenal ciyaaryahankana waa ay raadinaysaa hasaatee akhyaaray wixii warar oo cusub oo soo kordhay waa idin la wadaagaya haddana waxay idinkaga tagay sida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan channelka subscribe saar oo akhyaartaada la sii wadaag